xalay doodii ugu weyneed waxay ka dhacday golaha ammaanka qaramada midoobay halkaas uu kaga qayb galay danjiraha qaramada midoobay Abuukar Baale kuna soo bandhigay doodo waaweyn oo qadiyadda Soomaaliya ka mid ah. kulankan waxaa loo malsanaa in la cambeerayo ficilladii guricneed ee ku dhaqaaqday dowladda Israa'iil in ugu aqoonsato qayb ka mid ah Soomaaliya inay ka go'do inteeda kale. waxaa khudbadda la wareegay safiirka Israa'iil u fadhiyo qaramada midoobay wuxuuna sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan 34 sano jiray aqoonsaneed 60 sano ka hor. wuxuuna sheegay in dadka gobollada waqooyi loo geystay xasuuq weyn ayna tahay in dunida markaan ka garaabto ana aqoonsado madax bannaanida la siiyo. intaa kadib waxaa hadlay safiir ku fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale wuxuuna sheegay in ninka nala hadlayo uu yahay ninkii dilay in ka badan 70,000 oo ruux oo shacab ahaata dhaqaatiir bulshada qeybaheeda kala duwan ayna tahay inuu maanta hor fadhiyo qaramada midoobay oo ka dhex hadlo. xalay Soomaaliya waxay ka soo muujisay xaggaas diblomaasiyad xooggan waxaana halkaas ammaan weyn loogu jeediyay danjiraha halkaas fadhiga Soomaaliya qaramada midoobay Abuukar Baale. Twitterka social media meel walba lagu taageeray hadalkii ka soo baxay safiirka u fadhiya qaramada midoobay Soomaaliya Abuukar Baale. dhanka kale dowladaha waaweyn ee ka hadlay arrintaas Soomaaliya ka taagan sida Mareykanka, Faransiiska, Turkiga, Ruushka inta badan waxay sheegeen in xaaladda Soomaaliya tahay mid lama taabtaan ah ayna tahay in iyaga soo wada tashtaan haddii kala go'ayaan ama haddii kala tagayaan. xalay doodii ugu weyneed waxay ka dhacday golaha ammaanka qaramada midoobay halkaas uu kaga qayb galay danjiraha qaramada midoobay Abuukar Baale kuna soo bandhigay doodo waaweyn oo qadiyadda Soomaaliya ka mid ah. kulankan waxaa loo malsanaa in la cambeerayo ficilladii guricneed ee ku dhaqaaqday dowladda Israa'iil in ugu aqoonsato qayb ka mid ah Soomaaliya inay ka go'do inteeda kale. waxaa khudbadda la wareegay safiirka Israa'iil u fadhiyo qaramada midoobay wuxuuna sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan 34 sano jiray aqoonsaneed 60 sano ka hor. wuxuuna sheegay in dadka gobollada waqooyi loo geystay xasuuq weyn ayna tahay in dunida markaan ka garaabto ana aqoonsado madax bannaanida la siiyo. intaa kadib waxaa hadlay safiir ku fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale wuxuuna sheegay in ninka nala hadlayo uu yahay ninkii dilay in ka badan 70,000 oo ruux oo shacab ahaata dhaqaatiir bulshada qeybaheeda kala duwan